okay su'aal yar aan weydiinaya intiina ii soo qortay qof faan badan haddaan maanta just nolosheedu way isbedeshay kaba soo qaadba haddaan maanta la aamuso oo aan wixii anigu iska haysto oo iska qarsado maantay adigu sideed ku ogaanaysaa fursadan aan maanta helay su-aashaas ka soo jawaaba fursadan aan maanta helay aniga oo noloshayda bedeshay sideed ku ogaanaysaa marka تذكر يوما كنت تعانق دمعة الفكر تناجي الله في صبر وترجو رحمة تسري فعاش القلب إخلاصا وصرت تحوم كالطير تحلق في ثقافات وتنهل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وكوتش مهد آد بردين سلامة يا مال كستوى العالم ككتشوكتين إن شاء الله بإذن الله الكريم فيديو جان وفيديو عصب وفيديو جان كقبل لنقاضي مالين دويد إن شاء الله مالين دويد أيام حنسوق قري maxaad iga aaminsan tihiin maadaama ay dad badan igu xiran yihiin social media hadday noqon lahayd Facebook hadday noqon lahayd Instagram hadday noqon lahayd YouTube channelkan halkan aan hadda aad iga daawanaysiin marka dad badan baa igu xiran marka waxaan jeclaystay inaan ogaado dadkayga iyo marka dadka marka followerskayga friendskayga familieskayga dhamaantood maadaama aan ahay qof social media markaas isticmaalaya marka inaan ogaado bal dareenka dadka iyo marka waxyaabaha iga aaminsan yihiin qof caynka iga aaminsan marka su'aal noocaas aan ku iri maxaad iga aaminsan tihiin okay waxyaabo badan marka soo qoray waxaad iga aaminsan tahay qof dabeecad xun inaan ahay ma waxaad iga aaminsan tahay qof xanaaq badan inaan ahay ma waxaad iga aaminsan tahay qof isla weyn inaan ahay ma waxaad iga aaminsan tahay qof faan badan inaan ahay ma waxaad iga aaminsan tahay qof ku deesho badan inaan ahay qof ku deesho mudan inaan ahay ma waxaad iga aaminsan tahay qof been badan oo beenlow ah oo macnaha wax afka ka sheego aan loogu imaanin oo beenlow ah ma waxaad iga aaminsan tahay qof dhiirigeliye ah oo jecel dadka inay horumar gaaraan miyaad iga aaminsan tahay waxyaabahaasna marka dadka soo weydiiyey waana muhiim inaad dadka saas u wareysato saas u ogaato maaha inaad iska socoto maaha inaad waxaas iska samayso waa inaad dadka laftirkooda maasha Allah aad dhagaysataa haddaba waxaa jira marka waxaan rabaa inaan u mahad celiyo dhammaan intii maaragtaa halkaas ra'yigooda ama maaragtaa commentiga soo qoray waxaan rabaa inaan marka koowaad aan aad ugu mahad celiyo dadka maasha Allah aan aad iyo aad ugu mahad celinayo ay maaragtaa siday ay maaragtaa ii maleeyeen ama maaragtaa ay maaragtaa qoraalada quruxda badan ee positive-ka ay usoo jawaabeen because waa dad aad iyo aad yaqaana ila socday muddo dheer wax badanna marka iga og marka qoraaladiina mid iima sheegi karo laakiin dhammaantiin aad iyo aad u mahadsantihiin waxaad iga sheegteen wanaag waxaad iga sheegteen wax fiican waxaad iga sheegteen wax aad iyo aad maaragtaa aan ugu farxay maasha Allah khayr badan Allah idin siiyo waana idin maaragtaa mahad celinayaa maasha Allah dhammaantiin waxaa jira dad kale oo iyaguna markaas aan aad u badnayn laakiin aan dareemayay inay jawaabahaas ay imanayaan okay marka dad baa waxay soo qorayeen marka laga soo tago dadka iga maaragtaa sida fiican maaragtaa iga waxyaabaha fiican oo positive-ka maaragtaa ii soo qorayay kuwaas waan isla ognahay iyaga thank you so much dhammaantiin guys waxaa jira marka dad ii soo qorayay laba qodob laba arrimood qof macnaha waxay soo qorayeen qof isla weyn ma badnayn taasu qof faan badan waxaan ku aragnaa qof faan badan okay haddaba ma la yaabayo dadkaas inay ii soo qoraan taas because waxaa macnaha dadkii iskaga daran maxaa faan ah maxaa dhiirigelin ah hadduu maanta hadduu arko qof dhiirigelinaya ama dhiirigelin sameynaya yes keep going waad samey kartaa anigu waan sameeyey hebel waa sameeyey adiguna waad samey kartaa maanta nolosheedii sidaasay ahayd maanta nolosheedii way isbedeshay maanta sidan yes adiguna waad samey kartaa waxyaabahaas adoo sameynaya maanta ayaa qof wuxuu kuu arkay inaad faanayso
ninkan muxuu faanayaa marka waxna waa faan waxna waa dhiirigelin marka faan waxaa noqon karoo kale qof maanta dee inta noloshiisii isbedeshay ama lacag ha helo ama maal ha helo ama qurux ha helo ama wuxuu raba ha helo haddana faanayo dadka ku faanayo oo le wow ma ii jeedin sidaanaan noqday sidaanaan ahaa jiray maanta saanaan ahay waxa weye adigu maxaad samaynaysaa adigu ma sidaan samaysid adigu maad anoo kale noqotid adigu maad macnaha wax yaa macnaha faan ah oo qofkii maaragta wixii uu helay uu maalin kasta kugu faanayo oo markaas haddaad tiraahdo xataa war adigu sideed u samaysay ama sideen xataa maaragtay aan xataa waxba kaa caawo karin okay anagu sidaa ma nihin aniga waxyaaba waxaan soo boosti gareeyaa inta badan dhiirigelin ah ama ku saabsan noloshaydu sidee ahaa jirtay maanta noloshaydu sidee tahay okay haddaan marka kula wadaago maanta sidan u noolaa jiray iyo sidaan ahaa aan kuu raaciyo maantay sidan u noolahay aan haddana kuu sii raaciyo maantay siday noloshaydu isku bedeshay aan kuugu sii dara haddana maantay waxa aan adiga kaa caawo karo ama aan kuu qaba karo taas faan maaha taas waa dhiirigelin waxyaabaha aan sameeyana aniga inta badan taas waay marka faankii iyo waxa dadka iskaga qaldan dhiirigelintii laga yaabo dad badan inaysan maaragta aysan la socon arrimahaas oo dhan aysan wax fahansanayn maanta shalay anigu haddaan ku iraa sidanaan u noolaa maantana sidanaan u noolahay hadday noqon lahayd lifestylekayga hadday noqon lahayd maanta dhaqaalahayga hadday noqon lahayd maantay fursado aan maanta helay oo waxa weeye laakiin ma ihi anugu qof waxa uu maanta soo sheer garaynayo ama soo boosti garaynayo keligii cunaya mihi ama keligii qarsanaya ama keligii meel kula ordaya laakiin sababta aan kuula sheer garaynaya haddaba kuu sheegaya marka waxa aad faanka u aragto oo adu maanta inaan faanaya aad u haysato faan maahan laakiin waxbaan kuu soo bandhigaya waxaan kula sheer garaynayaa sidan inaan ahaa shalay maantana sidan noqday noloshaadana adiguna aad bedeli karto sidan anigu maanta noqdayna aad macnaha noqon karto keep going aad samayn karto taas waay marka role model ayaa la yidhaha marka qofkaas oo kale lama yiraa waad faan badan tahay okay marka taa waa inaad raaligelin ka dhiibtiin ra'yigiinad horta dhiibateen oo ma xubidin oo anaaba idin soo weydiiyey laakiin macnaha inay kaa baxdo maanta waxaad iga aaminsaneed haddaad arrintaas iga aaminsaneed maanta inaan kuu faanayo ama aan qof faan badan ahay faan waxa weye nin raga ma faano dumarka markaas waxa weye waxa nin raga wuxuu ka sheekeeyaa wuxuu jabkiisu ka sheekeeyaa dumarna baraarahooda maanta jabkayga inaan ka sheekeynayo waxa aan soo maray maanta rafaadka aan soo maray nolosha meesha aan ka soo bilaabay sidan u soo waday maanta meeshay marayso halkay u sii socoto waxyaabaha aan qaban karno waxa adiga aan kaa bedeli karo waxa aan kula sheer garay karo waxa aan maanta kugu caawi karo waxyaabahaas oo dhan marka wax dhiirigelin ah waana wax maanta aan u baahannahay inaan helno dad noocaas ah okay su'aal yar aan weydiinaya intiina ii soo qortay qof faan badan haddaan maanta just nolosheedu way isbedeshay kaba soo qaadba haddaan maanta la aamuso oo aan wixii anigu iska haysto oo iska qarsado maantay adigu sideed ku ogaanaysaa fursadan aan maanta helay su-aashaas ka soo jawaaba fursadan aan maanta helay aniga oo noloshayda bedeshay sideed ku ogaanaysaa marka waa in aan macnaha social media oo isticmaalaya aan kuu soo bandhigo sidaanaan ahaa jiray sidaanaan noqday miisaan intaana iga dhacday noloshayda saana isku bedeshay lifestyle-kaana ku noolahay berigii hore waxaan ahaa qof overweight berigii hore waxaan qof cayiran qof waxaan daal badan qof low energy qof aan hadaf lahayn qof aan maaragta shaqo adag ka shaqeeya qof noloshiisa noocaas tahay maanta waxaan ahay own boss maanta waxaan ahay waxa weeye qof asagoo keligiis noloshiisa haysta maanta waxaan ahay qof fursadaa helay maanta qof miisaan intaa leeg iska dhibay maanta qof lifestyle ku nool maanta qof fikirkiisii maskaxdiisii iyo wixiisii dhan bedelay maanta qof waqtigiisu maanta u xisaabsan yahay haddii marka aan marka saa kuula wadaago adiguna yes waxaad leedahay aniguna waan u baahanahay noloshaas aad ku noolaa jirtaan aniguna maanta ku noolahay waa inaan ka baxaa waa inaan lifestyle-kii wax ka bedelaa waa inaan caafimaadkii wax ka bedelaa waa inaan waqtigayga maanta aan xakameeyaa oo maaragta qiimo iigu fadhiyaa waxyaabahaas oo dhan aad marka ma ahan walaalayaal barnaamijyadeenu ma ahan inaan faanayno waa ka xumahay inta u fahantay waana ku mahadsantihiin kommentiyadiina iyo maaragta ra'yigiina because xaq baad u leedihiin inaad marka waxaad iga aaminsan tahay aad ii sheegto annagu waa ku faraxsanahay inaad maanta aan kaa qanciyo oo waxa weeye intaad ii sheegtay aan kaa qanciyo halka anna waxa weeye aanan oga lahayn adiguna aadan ka qanci lahayn aad iyo aad marka u mahadsantihiin gabar baa waxay soo qortay waxaan ku arkaa qof wanaagsan oo maasha Allah ah oo daacad ah laakiin waxa weeye laab xaaran oo macnaha daacad ah oo wixiisa qarsan karin hadduu barwaaqo hela iyo hadduu waxyaala aan waxba qari karin gabadhaas waxaan rabaa inaan u sheego walaal waan qarsan karaa
waxaan qari karin male berigi hore waan qarsan jiray haddaan jabo iyo haddaan rafaado iyo haddaan baahdo iyo haddaan waxelo wixii ii qarsanaa jireen maanta marka intii ka weynaaday oo ka aqli batay oo ka waayo aragsanahay oo qorba joog noqday oo ka maanta wax badan fahansanahay waan qari karaa laakiin ma rabo waxaan u rabin waxay tahay waxa xumaanta ayaa la qariyaa aniga maanta wanaagaan helay iyo faa'iido aan helay iyo result aan helay iyo opportunity aan maanta helay ma raba inaan qariyo anaaba u rababa inaan dadka la shaaciyaba la share gareeyaba oh yes come on guys noloshaada wad bedeli kartaa tayda waan bedelay marka role model ayaa la yiraahdaa marka dadkaas oo dhan waxaan u sheegayaa ma aha waxa aan faafinayno ama aan share gareynayno xumaan ma aha ya kuma dhahayo waxaasan sameeyay kuma dhahayo saasaan yeelay kuma dhahayo waxyaabo xun kama sheekaynayo laakiin just noloshii normalka aheed inaan markaa dadkii la wadaago history macnaha historygu waa waxa dadka bedela waana waxa dadka noloshooda bedela marka mar rabo videogu inuu dheeraado insha Allah dhammaantiin aad biyo aad u mahadsantihiin waan idin jeclahay waan idin jeclaa doonaa waxaan isku dayayaa insha Allah inaan maaragtaa dad badan aan noloshooda taabto dad badan aan noloshooda saameyn ku yeesho hadday noqon lahayd dhan walba insha Allah maanta waxaan hayaa fursad cajiib ah oo maanta wax kasta adiga aad jeceshahay kuu saamaxaysa marka diyaar waxaan kuugu ahay marka inaan kaa caawiyo insha Allah bidnillaahi kariim waad ila soo xiriiri kartaa contacteeda ila soo sameey kartaa wax kasta maaragtaa meel kasta caalamka ku nooshahay haddii aan ku caawi karo waan ku caawinayaa haddii aanan ku caawi karin micnaheedu ma ahan inaan xaasidahay micnaheedu ma ahan inaan isla weynahay micnaheedu ma ahan inaan qof xun ahay haddii aadan ku noolayn wadamada aan anigu kaa caawi karo oo aan kuu samay fursadaydu ka shaqaynayso micnaheedu ma ahan qof xun ahay taa waa inaad u fahanto okay waan soo sheegaa markasta fursadaheenu meelaha ay ka shaqeeyaan meelaha aan kaa caawi karo marka haddaad muuqaalkan daawato insha Allah waxaan kaa rajaynayaa inaad sii share garay doonto inaad dadkaaga usii gudbi doonto insha Allah biidnillaahi kariim haddaad nagu cusub tahana waxaad samayn doontaa YouTube-keena insha Allah subscribe ayaad samayn doontaa waadna nala soo xiriiri kartaa mar kasta insha Allah biidnillaahi kariim qoraal aad soo qori kartaa haddaad rabto inaad noloshaada bedesho lifestyle ahaan caafimaad ahaan dhaqaale ahaan maanta big opportunity ayaan maanta hayaa insha Allah waan hayaa gacantiidaas ku jira waana ku dhibaya hadda diyaar u tahay miihi kaliga cune miihi qof waxa weeye keligii horumarka isla jecel miihi qof keligiis wax kasta isla raba miihi qof faanaya miihi qof isla weyn miihi qof xaasid ah miihi qof dadka neceb waxaas oo dhan miihi okay haddaad aaminsaneed maanta waxaas oo dhan no wili miyaad inta ila soo xiriirto weydiiday waa walaal seed ku gaartay horumarkan aan ka caaway aan kaaga jawaabi waay may wili miyaad inta baahi anta soo baahatay maantay anoo ku caawi karo oo maantay aadoo ku nool maantay wadamadii aan ka caawi karay miyaad inta ila soo xiriirtay ayaan maaragtaa ku caawi waay waa may marka waxyaabahaas oo dhan maaragtaa insha Allah markasta be positive aad baan idin salaamaya insha Allah waxaan rajaynayaa muuqaalkan inuu wax badan in ka anfici doono waa walaalkiin Coach Mahad oo idin la intaan ku kulmayno muuqaalkan kan noo xigi doona insha Allah وهذا حيابا كفائدة دونتين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.